السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أخياتكم حين يوتيوب channel كينا وأنا عبد الله عبد علي قربكي waxa fadhiya saaxiibkay Isxaaq Cabdi Isxaaq maanta waxaan idin wadnaa barnaamij kaftana waan ku wada kaftami doonaa halkan aniga saaxiibkay Isxaaq waxaan rajeynayaa inaad ka wada bogan doontaan adduunyada gaarsiyo waxaan halkan ku soo dhaweynayaa saaxiibkay Isxaaq Isxaaq walaal soo dhaw Abdullah Abdi Ali aad u mahadsan tahay sidoo kale waxaan leeyahay asxaabta soo dhawaada mar labaad mar saddexaad waxaan leeyahay ciid wanaagsan okay wanaagsan waxaan ku dhahay Isxaaq maanta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhowr su'aalood ma badno adiga wax saas u badan wax farqo ku tirsa su'aasha koowaad oo aan rabo inaan ku weydiiyo waxa waaye Isxaaq horta xagee ku dhalatay xageena ku soo barbaartay waxaan rabaa si oo fiican u jawaabtiyaa luqluqa ay gelin dabcan su'aal fiican aad weydiisay Abdullahi dabcan ilshadii markii laga hadlaayo dad badan maanta waxay leeyihiin ama ay aaminsan yihiin Isxaaq wuxuu ku dhashay magaalada Muqdisho halka kuwa kale ay leeyihiin Isxaaq wuxuu ku dhashay gobolada dhexe laakiin dabcan aniga waxaan ku dhashay kuna soo barbaaray degmada la yiraahdo Tiiglow ayaan ku soo koray ama si kale hadaan u dhaw aan ku soo barbaaray halkaas waxaan ku soo qaatay dugsiga Quraanka intaas kadib meeshu waxay ahayd meel miisan lahayn waxbarasho kale waxaan u soo wareegtay magaalada Muqdisho caasimada waddanka Soomaaliya hadeer waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho alxamdulillah waaka Isxaaq aad u maasantahay meel gool maadaama ku dhalatay waxa la dad gool ku dhashay waa dad xoogaa adag adina xoogaa waa jilcanta saas dhaay horta wiliga geel maraca saaxiib geel murus dabcan dadka macnaha baadiyaha jooga markii la yiraahdo oo kale ama miyiga dadka jooga dabcan way kala duwan yihiin dad waxaa jira geel dad waxaa jira geel aan lahayn ari iyo macnaha waxyaabo saas ah ani ahaan family aan ka dhashay geel way lahaayeen iyo ari anigu dabcan markaan yaraa geel aadan u jeclaa hadda kor waxaan xasuustaa dhowr mar in macnaha xaafadda maamada iga tagtay أنا سبح أنا أراعي مركب طبعا جيل وحليه واحد اللي هذا كور عمل كور واحد اللي هذا أما شيء اللي هذا كور مركب جيل الواحد مركب كور معناه كور والب يرتب أنا وحاب أمسنا جيل ويا هذا كاين ويا وأنا سكت يعني جيل وجوينا كور كحريم مؤمنين صح عبد كور وحنا سوستا مال المحكمة إذا حافظة وحالك يعني خطير ayaa la keenay xoogo marka candhi wax saas ku dhacay marka waa u tigi marka dabcan geel isagan waxa weey wuxuu gima wax la yiraahdo xaraat maqaanari aad iyo ma garnaa martii marday yo geel waa arkay laakiin waxa wiliga ma raaxay taasoo sheekada aan ku wada ilaahay laakiin bari oo bursada waa u tigi marka xagashan ka taabtano كتاوتي حاجاش ميل معناها ميل حاجة ولا هي حاجاش مركب كتاوتي حرانت الوالي ولفت أدي أنا وصل قلي أدور قاضي أنا وصل قلي أدور قاضي خاصة بواعي خاصة أنت عمل مركب قلت له أدي حق عمل يريد أدي هاي يا ودعوانا يعني واسكك حيوان لكن أقعد هذا أدي لا يا أصحابي من كان أصعب على سؤال عادي زين جيل انتنا سوليه يو انك سجل بلي على سيد لكن شاكاكم مغلي شاكاكم مغلي انتنا سوليه وعد كورا ملي فيديو الله جيل مقنا سوليه الله هذه قفه هذه عيد قحو ما قرنا على جيل مقنا سوليه جيل ارلي ملميتو ودا لما ناس marka aan saas midayad xogaa sheekan oo ku maqlay geel waxa la afar naas suuliya allah لكن سؤالك سؤالك اللي بكويدين كره ما بيدين كرتا لكن صحيح xoolaha si fiican kala garnaa wiliga xoolo maraacin hadii loo gaar ariga soo daaji hawiyana si loo daaji ma garnaa cilmi goon la barto oo barneena dhimaa laakiin سؤالك اللي كويدينه ay dabcan caruurtii reer igeel magaca la raxmad qaan horta nrig la jala نريك صح يو قربع ما قربع واحد نريك اللي سوداء نريك سوداء مركي وكاسا عادي الحوغا waxaa u maleynayaa in
wixii baadiyi jooga inta lagu keenay xogaa maadaama aa ka jawaab su'aal laakiin cabdi cali haddii lagu dhihi lahaa geel raac ka waran xaggee ka bilaabi lahayd yo waa runta haddii aa sheego forever ana xoolo ma raacin dadka xamar ku dhasho xamar sida soo barbaara aha ayaa muqdisho ayaa xamar weli geel ma raacin laakiin geel iska dhaaf aragna ma raacin asxaabay dabcan dadka geel aan aqoonin inta badan waxyaaba cajiib hadda kore waxaa lahay dabcan nina hadda kore waxaa lii dadkan qabiilkan dabcan qabiil ma aan rabin inaan sheego laakiin hadda noqor qisada la sheego cabdi cali oo kale mid macnaha nin wuxuu macnaha ku dhaaftay hal neef macnaha hal geel ayuu ku dhaaftay hasha marka way dhishay ninkan marka low macnaha uu garan jiray moogta lo si loo kisoksa oo kisoksa looda macnaha si loo maamulo yaqaanaan geel mukasa marka kaasana uu yahay laakiin hashi geel cunuggeeda markuu dhashay lugihiisu way dheeni sooma sax ninkan hashi cunuggeeda lugihiisu arkay way dheeni markaasuu luguhu ka macnaha uu ka jarno qaybta hoose ka jar wuu gaabi markaasuu ku kale u yimid ku kale u yimid markaasuu wariya kan wuu dheer yahay ka warramo maxaa saa camal wuu dheer yahay macnaha meel lama gelin kara axmed sax markaasuu yidhi aga ariya haddeer le aad aragtay u dhaf markaan jajaray leba aragtay marka hore intuu jiri lugu soo jajaray de cabdi cali waxaa lu malaynaa adiga kaasoo kale inaa noqotid maya kaas waa xoogaa wa fiicanahay horta isxaaqow su-aal waxay weydiisa oo xanuun oo weligii la weydiiyey su-aalna wax su-aal mid fudud aa ku weydiinaya isxaaq horta niyo waxaa laa dhalinyarta bruni dhilaamo adi garabkay dhishaa booska buushinkaa dhiis noo sheeg maan maadaama aad tahay horta waa ku ogaa inaad tahay ciyaaryahanka hala araga bal si fiican u garanahay laakiin buushinkaa dhiis noo sheeg wallahi waa su-aashaas dabcan waa su-aal muhiim ah markii la fiiriyo si haddii loo dhigo laakiin waa dhalinyarta muhiim u taano iban odayaasha hata way noqon karaan maxaa laakiin dada waxay aaminsan yihiin banooni ma la dheeli kara macnaha qalad waa in la dheeli maya dabcan culimaduna way ka hadleen waxaa laisku raacay macnaha hata waqtigaa laisku haysta maahane sax banooli hadda wax cilmi asaas ugu weyn uu ku fadhi ma lahan laakiin waxaa laisku haystaa waqtiga meesha la gelinaya waqtigaasa laisku haystaa laakiin dabcan dadka qaar waxay leeyihiin waa exercise macnaha exerciseka macnaha wuxuu muhiim u yahay jirka bini aadam marka dadka qaar iyagoo meesha ka fiirina waxay leeyihiin banooli waa iska caadi macnaha in la sameeyo caafimaad u keenaya si fiican marka laakiin ka ani ahaan aan banooni horta ma ciyaaro man rabo inaan ciyaaro laakiin dabcan dadka banooniga ciyaaraya ani hal meel ugu jecla haddaan ciyaari lahaa inaan ka ciyaaro difaacan ka ciyaaro difaacna dhishid asa cabdical oo kale shaafto weli aan la kici lahaa waxaa hal maalin horta waxaa sameynaa banooni ku dhelsiinaa dhib malaha maya booshinka waxa waa qof walba booshinka ku fiican tahay bisa fiirro maadaama aan daafaca dheelaya daafaca ku saajinayna ana qof ima soo maray adi daafaca hadaa igeysid maaho qof ima soo maray walow lagu habaan qabta adi sida ninka sheegas geela lagu ka jira aan ku samey adi waxaa rajaynaa dhib malaha isxaaq maalin insha allah hadduu ilaahna gaarsiiyo haddii fursad aa u helana sabulon dhila soo dubeena ama asxaabi ninkan noo kala macnaha noo kala garqaadaya asoo sanshada ku darbeena waa arka dadilana gaarsiin sanshada war waxaas ma jiraan aniga horta bulona ma ciyaaro sax laakiin aan waa dhila waa ka fiicana maadi waa dhisha xogaa waa laakiin aan ma ciyaaro laakiin haddii waxa weeye garoon aan galo aniga waxaan hubaa gooshi nin meel kor ka soo tagti maaha laakiin intii la isoo dhaafay inuusan gol iyo dhalay nin oo agtaada imaado gool uu ka dhilwaa gool oo meel dheer ka imaado soo kaa maya kor inuu kasoo shoodo macnaha kor hadduu kasoo shoodo goolhayaha lay qaban kara mogta aan goolhayo miyo adi aan daafac laftirkiis gacantuu qaban karaa le gacan qabanis aan gacan waxaas ma qaba ma rajeynaysaa mustaqbalka in yani cayaareen weer waxaas dooni maani ma doonaysa mustaqbalka waxaa rajeynaysaa mustaqbalka in yani waxaan maadaama inaa cayaareen noqoto aad diidid maxaa rajeynaya مستقبل كان تعالى
nin ganacsada ah ganacsada inaad noqoto dabcan qof walba wuxuu way leeyahay ganacsada aad noqoto maxmee okaadi horta adi hadda okaadi ganacsada aad noqoto maxmee maxaa ganacsadataa maxaanu keeni wax faa'iido leh manuu keeni anaga aan wax ka faa'iidno wax dhalinyarta quseeya wax odayaasha quseeya ama wax soomaali oo dhan yacni oo muhiim u ah insha allah waan rajeynaa wax soomaali dhan muhiim ah inaan sameeyo maxaa ku taamaysaa inaa noo keento marka waayey maxaa ku taamaysaa dabcan horta haddeer aniga ganacsi maana bilaabin sooma laakiin I hope so insha allah laakiin ganacsiga meelo waxaa jira oo asaasi oo ka bilaabo isku day leen inaa mar cajiin aa wareejisid maadaama meesha ganacsi ay tahay dabcan dad badan waxay aaminsan horta cajiin in la wareejiyo in macnaha ceeb ay tahay laakiin ganacsi bilowgiis waa no macnaha waxaa jira waxa la small business oo calaa dabcan dadka oo ganacsiga barto yaqaanaan waxaa jira waxaa small business la dhaho dabcan dad qaar waxay leeyihiin business soo bartay laakiin khibrad aan u lahayn waxay leeyihiin casaye oo kale hadday arkaan arrinkan waxaas business la dhaha business bilowgiis waa business hadda kahor aniga ma aan la kulmin ma aan arkin laakiin waxaan maqlay nin macnaha wareejin jiray bahashan la yidhahdo oo kale maxay toole bahashan dharka lagu tolo maxay magaceed duntaas nin wareejin jiray waxyaabaha sakiinta waxyaaba la halmaala haddeer maanta magaalada muqdisho inuu ku leeyahay hoteelo let alone dukaan waxaas iska daa hoteelo inuu ku leeyahay duna wareejin jiray maantana muqdisho hoteelo ku leeyahay sidoo kale si kale aan maqlay waxaa jirta nin isagan xawar markuu soo galayay macnaha gobolada ku yimid xawar markuu soo galayay ninkaas waxaan maqlay waa nin aan caruurtiisa naqaana laakiin caruurtiisa kasi si fiican nin fiican taa ninkaas magaalada muqdisho maalintuu imaanayay wuxuu bilaabay casaynimo maanta magaalada muqdisho inta buu ku leeyahay waa diyaar wallah caruurtiisa ninka hadda wuu dhintay laakiin caruurtiisa inta buu ay leeyihiin sax marka wax walba macnaha dhib ma lahan wax yar ka bilow ama wax weyn ka bilow laakiin hadafkaad ka leedahay wax walba muhiim ah laakiin adi maxaa jeclaan leh aniga niyo horta mustaqbalkayga baan ka hadlayaa yes why not ya niyo horta ana waxaan rajeynaya insha allah mustaqbalka inaan noqdo qof walba wuxuu rajeynaya wuxuu jecel yahay laakiin aniga waxa ugu wanaagsan asdhaa ali leeyahay maanta bulshada ay u baahan tahay inkastoo yacni 99% qof dhalinyarta qaar ay xiiseeyaan macnaha waxaan rajeynaya insha allah inaan noqdo dhakhtar laga yaqaano dunida ay gaarsiiyo laakiin su'aal ku weydiin karaa dhakhtarnimadiisa maxaa ku dooray niyo horta dhakhtarnimada waxaa doorta waxyaabo badan marka hore waxaa waaye xaaskaaga oo kale waxay u baahan kartaa gargaar u baahan kartaa waxaa laga yaabaa in yacni dawe u baahato for example hadda waxaa jiro aqoon uu leeyahay wuxuu bartay laakiin dawadii loo soo qoray asaga ama xaaskiisii loo soo qoray ama cunugiisii loo soo qoray waxa yacni qaabka loo isticmaalayo weega loo isticmaalayo even hadduu dhakhtarka u soo qoro maca ma kala saari karo marka mid taas qiso noocaas oo kale waxay ku dhacday qof aniga aan garanayo waxaa loo soo qoray dawaa loo soo qoray dawadii marka waxay leedahay soomaan dosage ogaan oo dhakhtarku uu ku soo qoraa xadkii looga talagalay xad ka badan oo yani cunugiisa overdose ku sameeyey marka cunugtii oo dawadii la siiyey dhibaata ku timaaday ninka cilmi uu leeyahay aqoon uu leeyahay laakiin waxa waaye haddii yani waxaas adiga aas tiraado waa wax ugu muhiimsan qofkan yani bini'aadanka nafsadiisa u baahan taha waa caafimaadka markii la eego marka taas waxaan ku xesho taas waa aad iyo aad noo xiiseynaya abdullahi gaarsi waan rajeynayaa insha allah waa wax badan oo arki doontiin si fiican laakiin cabdi caliw dabcan dhakhaatiirta marka la laho soomaaliya haddeer ay ka jidho oo kale waxyaaba badan lagu cambaaray waxaa ka mid ah inuu dadka lacag badan ay ka qaataan waxbaysan u qaban taas maxaad ka leedahay laakiin mustaqbalka haddii doctor aad noqotid society-ga macnaha beri wax ma u qaban lahayd niyo horta cilmiga ilaahay ku siiyey waa wax wanaagsan waa ilaahay yani ilaahayna waxa laga baryaa inuu ku ziyaadiyo si fiican horta dadka bini'aadamka isku mid maahan dad yani kugu xujeynaya way jiraan lacag badan ama lacag badan qof ka qaadayo niyahow aniga saa isdhahaayo horta qofka bini'aadanka lacag la'aan ma shaqayn karo si fiican aadi waxay noqoto un waxun waa ka qaadanaya laakiin wax saas u badan maaha wax waa ka qaadanaya laakiin wax saas u badan maaha waa rajeynaya bilaana gaarsiin laakiin 90% dadka waxaas leeyahay ali leeyahay haddii qofka bini'aadanka oo kuu yani dantiisa uu kuu sheegto oo ku yidhaha niyo saas wuxuu jiraa insha allah waxaa rajeynaya inaa ufutisi camal inaa yani si firiya waxa u fudaya bilaanka waa rajeynaya insha allah si fiican
mustaqbalka dhow adduunya nabgaadho una siiyo marka isxaaqo waxaan rajeynaynaa barnaamijkeen inaan halkan aan kusoo gabagabeeno akhyaarta waxaa leenahay aad umahadsantihiin daawashadii aad daawanaysaan videogan waxaan rajeynayaa dhammaantiin inaad like aad saari doontaan sheerka aad noo raacin doontaan adduunya nabgaadho una siiyo aad nala socon doontaa insha allah video walba aan soo gelino waxay dirajeen qara idin jiraan asxaabay waa sida cabdi cali uu sheegay saaxiibka cabdi cali suu sheegay waaye please dabcan qof walba wuxuu u baahan yahay waxa lahaa dhiirigelin tusaale ahaan oo kale baawarka markii laga hadlo oo kale dabcan shidaal la'aan ma socon karo dabcan markii la yidhaahdo youtube markii la yidhaahdo waa shidaalka keliya macnaha qofku u baahan yahay waa inuu helo subscribe ama macnaha waxa la yidhaahdo macnaha qofkii subscribe loo sameeyo marka subscribe-kiina waa noo muhiim